بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم إخواني وزملائي. waxaa insha allahu tabaaraka watacaala muslimin darsi cusub oo kamida duruusta kitaabka alcumdatu fi laxkaam oo ah darsigii 22aad insha allahu tacaala caawa oo ay taariikhdu tahay 27kii bishii safar 1447 waa darsigii 22aad ee kamida duruusta kitaabka cumdatu laxkaam. waxaynu bilaabi doonaa insha allahu caza wajalla kitaab albuyuuc oo ah kitaabka uu ku ururiyey alxaafid cabdulghani almaqdisi raxmat ullahi caleyh raxmatan waasica axaadiistii uu ka soo qaatay saxiixeynka bukhaari iyo muslim raxmat ullahi calayhima ee khusaysay iibka iyo qaababka dadku ay wax u kala iibsanayaan. marka xaafidku wuri raximah allahu tacaala kitaabu albuyuuc waxay ka dhigan tahay waxaan kuu sheegi doonaa halkan oo aan kugu soo ururin doonaa axaadiista rasuulkeenna sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam intii ugu saxiixsanayd usuusha iyo qawaacidda guudna ahayd ee ku saabsanayd bayca ama iibka. ugu horeyn ikhwaani baaraka allahu fiikum, iibku ama hordhac ahaanba xooluhu sharcigeennu runtii aada iyo aada meel culus buu gaarsiiyey, waxaana maalka sharcigu uu ka dhigay axad aldaruuriyaat alkhamsa, 5 arrimood ee la yidhaahdo waa daruuriyaadka noloshu ay ku taagan tahay. rasuullada ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray oo dhanna ilaahay uu la soo diray. هذه الضروريات الخمسة ما هي؟ حيث الدين، حفظ الدين أول شيء، وإن دين تمحي لا إلاليه ولا وناجيه. لبا حفظ العقل، عقلك قفك إنه حويان لا إلاليه ولا دوره سيدا أوجد مسكرات كي واحد كستوح صخرانية لو حارة تنوي. صدح حفظ النفس، نفطين لا إلاليه sidaa ogeed baa ilaahay wuxuu sharciyey qisaasta iyo qofkii xaq darro ee lagu dila inay muxaram tahay. 4 xifdu lmaal, xoolaha in la ilaaliyo. ka shanaad ugu dambeeya maxay? xifdu alcird, waa cirdigii iyo sharaftii, bacduhumna nasabka halkaasay soo geliyaan. sidaa ogeed waxa la xaaraantiniyo wax kasta oo zinadii ama xumaantii iyo waxyaalaha noocaasa qofka ku kicinayay. marka maalka in la ilaaliyo wuxuu ka mid yahay maxay min adaruuriyaat alkhamsa, 5 daruuriyaadkii sharcigu adkeeyey, axkaam fara badana sharcigu ka tartiibiyey ayaa uu ka mid yahay xooluhu. qur-aanka haddaynu eegno xoolaha markuu ilaahay subxaana wa tacaala adduunka uu tilmaamayey muxuu tilmaamay allah caza wajal almaalu waalbanuuna ziinatu alxayaati addunya. xoolaha laga hormariyey ubadka, xoolaha ayaa laga hormariyey ubadka. dadku iyagoo labadaba wada jecel haddana dad fara badan xoolahiisii jecel yihiin. war maxaad u gursan weyd? wuxuu ku leeyahay horta waxbaan yara ururinaya, xoolaha yara ururinaya, waa mashquul, hawl buu ku jiraa, hawl qaran buu wadaa soo ma. dabeedna waxa laga yaabaa inaanu xasuusan oo mar dambe oo beri dambe uu weynaaday ama markaa wax yara baadhbaadho oo hawl kale u galo. laakiin xooluhu almaal waalbanuun ziinatu alxayaati addunya, labadaas inay tahay quruxda adduunka ayaa ilaahay subxana wa tacala inoo sheegay. qodobka haddaynu ka gudubno xoolaha sharcigeenna haddaynu u fiirsanno qur-aanku wuxuu sheegay qawaacid guud, sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo axaadiistiisuna qawaaciddii yacni ballaadhnayd bay sii faahfaahaysa. iqtisaadka ama dhaqaalaha qaabka loo sameeyo dhaqaalo ama xoolo loo curiyo ama qofka xoolo uu samaysto sharcigeennu waa kafaalo qaata, waana ka hadlay si qurux badan oo la yaab leh. sidaa awgeed iqtisaadka ama dhaqaalaha islaamiga ah haddii si fiican loo dabaqo inta sharcigeennu uu jideeyey bulshadu waxay gaari lahayd horumar dhaqaale aad iyo aad u culus.
مثلا أركان الإسلام وحكوا شر إيتاء الزكاة سكدي إلا بحيه أو سكدي وحويان تذكر لصيه علماء waxay tilmaameen hadii qof kasto ilaahay saka uu saaray sakadiisa sidii ilaahay ugu talagalay haduu u bixin lahaa arlada korkeeda lagu arkay qof faqiiro baahan laakiin maxaa dhacaya sakadii baa la isku haystaa xoolaha naftu waa jecesha waxa runtii qofku arkaya waxyaalo la yaab leh oo qofku sida neefka xoolaha ku waajibay uu uga maraateynaya maanta oo marba uga warwareegayo oo marba cudur daarro iyo sabab wax weeyaan jirina taas waa xagga sakada muqaabilka ka soo horjeeda ribada sharcigeenu waa la dagaalama maadaama ribadu ay tahay qof kaliya inuu xoogsado oo dadkii masaakiintii aan waxba loo ogolayn ee kii qaniga ahaa ama taajirka ahaa xoolo badan uu u helo ujeedkeedu maadaama noocaas uu yahay sharcigeenu waa xaaraantinimay 5 suuradood baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xaaraantinimay khatarteeduna ka warramo fi suurati albaqara suuratu ali cimraan suuratu الnisaa suuratu الruum suuratu almudathir waynu gaari doonaa insha allahu caza wajal bal ribada sharcigu wuxuu ka dhigay dembiga keliya ee qur'aanka ku jira ilaahay weli subxaanahu wa tacaala qofka sameeya waxaa kula jira dagaal fain lam tafcaluu fa'danuu fa'aadinuu bixarbin min allahi warasuulih aayaddan ku tujinna fi salaat almaqrib الذنب الوحيد واللي يقول قفك سمايا دقال بو إلهي كل شيء ويرجبه مركا خطر ويان هذا عرس شرعنا وقت كيوان ونقاردنا إن شاء الله عز وجل مركا عموما وين نؤمننا أو أي واجب تاعي دينة الإسلام كسيدة قلنا ما يسكتران تاعي أي دقاله هيدا دينا دقاله دينا حول عرنتا دينا وحويان الإسمام الكا حكمك كذلك أيضا تدكو حيسكوها بيانا يسكو دقيان كل شيء شرعي وكامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأنا موضوع بارين لو قصي هذول لكن لك جالس كهذا إنه مسامحي قدمك كحجة علماء رحمة الله عليهم وحيت المؤمن قف كستا وإيد أما البيع والشراء كل حجرة وحواجب كوه علم هذا صارنا يتعين برتو وعلمك إيدك كيس حلاش أي كيس حرامته هذا شيء واجب حنسوق قال حديث النبي يقول عليه الصلاه والسلام طلب العلم فريضه على كل مسلم قف علمك انه طلبه فرض بكتاي قف كسته او مسلمه marka cilmiga faralka ah waxa kamida cilm al-bay' wal-shira' kiisa xalaasha ah iyo kiisa xaraanta ah حديث رفاعه عند الامام الترمذي ولو في صدى حديث كاس الإمام الترمذي أي كسوري جامع عيسى وحانوا وحسن صحيح وحول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا معشر التجار تعمطتك قناع ستضع أي نبي أيري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورقصا صحابي وحولي فرفعوا إليه أبصارهم يعني أرقيضا أما وحوي عندها يبي النبي عليه الصلاة والسلام كنت أقولوا أي سرقوا قاضين سي النبي أيوة أركان وقال النبي يقول إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق إن التجار تتك تجار داهي قناع ستضع يبعثون يوم القيامة مالك قيامة وحل صوصاريا فجارا يقعوا فجارة يعني فساق ضد إلهي سبحانه وتعالى طاعديسي كبحي ضد حنحن يقوى إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا تجار توحل صوصار يا مالك قيامة يقوى ضد حوين حنحن إلا مويانه من اتقى الله قف كستو إلهي كبق مويانه وبر وصدق قف كستو تجارديس إلهي سبحانه وتعالى كبق بري iyo samafalna ku dara runtana isticmaalo oo wax qish ah iyo wax weeyaan istabamarin ah midna waa isticmaal hadiiska at-Tirmidhi ayaa soo wariyay waxaan u yiri waa hasanun sahih halka maxaan kala baxaynaa hadiiska arrimaha ganacsiga iyo xooluhu in fara badan waxay ku taagan yihiin maxay waxyaalo aan banaanayn oo sharcigu aan ogolayn sida uu nabigu wuxuu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam aakhiro inay dad xun ay u badnaan doonaan dadka tujaartu ilaa qof ilaahay ka baqa mooyaane subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo at-Tirmidhi fi jaamiciisina uu ku soo wariyey waxaanu yidhi waa xasan cumar bin khataab
رضي الله عنه وأرضاه أنت سوقاته دنقديس عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت له درة وحلهان شري دنقد لورن شري الدرة كتب على قرأ أخبار درة عمر أنت دنقديس سوقاته سوق الله صور دحقله أيا وحلهان شري عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين سوق يدينا وحبك إيبين ميسو قف دين تبرتين ويان قف كالو قالوا وحن إيبين ما حلال ما حرام با قف كالو السوق مسوق لي لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين إلا قف دين تبرتين وحن إيبين ما حلال ما حرام با كلا برتين ويان قف كالو السوق يقف فريسان مايو marka intuu imaado ragga meheradaha haysta ayaa wuxuu ku oran jiray ma dhigatay xalaasha iyo xaaraanta ma garanaysaa ribadu waxay tahay maxay riba ahayn hadduu yiraahdo haa waa uu sii deyn jiray meherada haddii kale meherada la rafacay Umar radiyallahu anhu meherada intuu rafaco ayuu oran jiray orado soo baro masjidka qabo soo baro xalaasha iyo xaaraanta hadhow dabadna waxa weeyaan waxiin waxa kaloo isagana laga soo wariyay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ardaa inuu yiri man ittajara qabla an yatafaqqah qofka tijaaro ama waxa weeyaan wax iib gala isagoo aan fiqi lahayn irtatama birriba thumma irtatama birriba wuxuu dhex galaa qofkaas oo uu waajaha ribo haddana uu dhex galaa inuu isagoo aan is-ogeyn marka abwaabtan cilmigeedu waxa uu qaybsamayaa laba qaybood mucaamalaadka iyo iibka iyo arrimaha noocana qayb fardul cayn ah oo qof walba ay ku tahay faral inuu barto waa waxa qofka uu ku ogaanayo waxa uu iibinaya ma xalaal ba ma xaraam ba shuruudaheeda iyo arkaanteeda waynu sheegi doonaa mar dhow insha Allah azza wa jalla waliba marka dambana tamaariin baynu samayn doonaa insha Allah in wax ku fahmi doono qaybtaas waa qaybta koowaad qayb waxa jira fardul kifaa'i ah oo tafaasiisha masaa'isha buyuuca oo taas iyada dadka culimada iyo dadka u fatwoonaya ayay tahay iyagu inay bartaan laakiin qaybta hore ee qof walba saaran qof kasta oo meherad leh waa inuu ogaado meheradiisaasi maxaa xalaal ah ama maxaa xaraam waxaan uu iibinaya wax bannaan ma yahay mise ma bannaan waxaan aakhira qofka ma loo qabsanaya mise loo qabsan maayo qaabku wax uu iibinaya ma sax baa mise waa qalad marka halka waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood oo min caamati nnaasi ah dadka cawaamtooda inta uu maqlo tusaale ahaan business buu dhex galay ama meel buu wax weeye share iyo wax buu maqlay oo wax buu dhex galay marka uu dhex galay ee hawshiisii uu dhamaysto ayuu hadhow imanayaa culimada kasoo sheekh hawl noocay macaasaa jirta barnaamij noocay macaasaan galay xukunkiisu waa maxay xalaal ba ma xaraam ba ma riba mise riba ma waxba ka sii oo intaanad waxaan dhex gelin ee aanad dhex fariisan maxaa culimadu wax u weydiin weyday xaaladdu isagu dhex galay oo dhex dabaashay xoolihii laga hayaba hawshii dhamaatayba ayaa marka dambe wuxuu ku leeyahay sheekhna ma xukunkiisu waa maxay istafti qalbiga naftaada weydiid marka hore wada isu fatwoodeen haddana isu fatwo marka qofku waxa uu sameeyaa waa inuu diinka iska horeysiyaa waxaan xalaal ma mise xaaraan ma yahay qofku waa inuu iska horeysiyaa waliba halka waxaan ku sii daray maksabka xalaasha ah xoolaha xalaasha ah qofku inuu shaqaysto ehelkiisana uu ku koriyo iyo caruurtiisa saameyn aad iyo aad weyn bay u leedahay ubadku inay wanaagsanaadaan oo ubadka way fiicnaadaan ubad fara badan oo maanta wax weey laga cabanayo oo maanta la leeyahay akhlaaqdoodii waa xumaatay dhaqankoodii waa xumaaday ma garanaysaa diintii baa lagu kari laayahay waxay haystaan cibaadaadkii iyo salaadii aslan waa ubad lagu korinayo xaaraan ama lagu korinayo xoolo aan bannaanaynba oo waxyaalaha noocaas hadda aynu tilmaami doono insha Allah azza wa jalla inta wax weeyaan xoolaha la soo qaaday ubadkii lagu barbaarinayo lagu korinayo marka nabiguna wuxuu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam jid kasta oo xaaraan lagu koriyo fanaaru awlaa bihi naar baa mudan ayaa nabigu alayhi salaatu wasalaam ama naar buu mudan yahay jidkaas marka qofku xoolaha uu cunaayo ama uu isticmaalayo saameyn aad iyo aad u weyn bay qofka ku leedahay على صلاح القلب قلبك وين ونكسناده وصلاح العمل عملك ونقض مد صوبا وتوصا وصلاح الذرية ومدك وين ونكسناده النبي يقول عليه الصلاة والسلام صحابي لو نجري سعد رضي الله عنه وارضاه سعد بن أبي وقاص يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك وحاض عنيس وناج أو حلال مويان وحكلا عن أطب waxay ka timi min taaba yatiibu
أطب واحد وناجسا مطعمك وحا عنيس وناج توجب وحلقاء أجيبيا دعوتك برياضة هذا مركز الله سبحانه وتعالى بريسه ولقاء أجيبيا أسبابها دعوك إلهي كو أجيبه وحا كمدا حولها حلاشة قفكو إنه نغضو قف حلال ميرط له قفكو إنه نغضو حلاشة قف وحوي حلاشة راد سنة أو حيالها حولها حرامتا أو محرمكا قفكو إنه اسكا إلالي qayb labaad baa laftigeeda la iska ilaaliyaa imka dadku xaraamta wada in badan hadda la iska dhex jira Allah yastur ilaahay ina asturay qayb labaad bay taayadana in la iska ilaaliyo waa qodobka ku saabsan mutashaabiha waxyaalaha isu eegay alhalaalu bayyinun walharaamu bayyinun وبينهما أمور مشتبهات النبي عليه الصلاة والسلام حلاشي حرامته waxa u dhaxeeya waxyaalaha mushtabihaad oo isu eegay ka xalaasha ah waa in la sameeyaa لكن حرامت يمشتبه الله بابا وإلا إسكايل عليها مشتبه وحا كمدا وحيالها أنا يعضين بقولك بقول محلال بمسوا حرام تصالحان مثلا وين تمام دونا إن شاء الله مثل هذا قرب نكسو قادم دونا هاي تصالحان قفل وحكو يدينا يا شير مجلي كرا تصالحان شركات ككمدا شير ما كقادم كرا أما شير وحويا مجلي كرا وإن الله مشاركة يو شير كاسد وحول إيسو صاروا ربحية فائدة كان طيب ما نوع الشركة وين مسويتنا شركة ضمن الشركة صوم اللي سمعت لأن شركاتكم تنقسم إلى 3 أقسام صدح قيمون أي قيم سمية شركات وحشرة وحيكون شقيسان ساعتها هي حلال الشركات النقية وشركات محل وحيقب سنة يساء ما يكون شقيسان ساعتها وحلال وبقول حلال ميرة له قيب طلبات شركات محرمة شركة حارانة وحي يبيني أصلا وحاران waxay ka baayac mushtareynayaan wax muharrama ama aan noqoto مثلا tusaalahan khamriga iyo waxyaalaha la midka ama aan noqoto waxyaalaha مثلا labiska kiisa wax weeyaan xaraamta hatta wax xaraan aan diixta la iibinayo shay wax noqonaya ganacsiga meesha lagu hayay xaraan noqon sida tulaan doon insha Allah shirkad muharrama wax xaraana bay soo waridaysaa ama wax xaraana bay keenaysaa shirkad waxa jira qayb saddexaad oo al-mukhtalita shirkadku maxay isku dhexdhafan نظام كودجيسن waxa ku qoran nidaam islaami laakiin macaamilka ay macaamilayso shirkad ku shaqeynayso waa ashyaa muharrama ribawiyaat riba ku jira waxyaalo muharrama ay soo iibinayaan laakiin iyaga nidaamka ay dejisteen iyo culimada hadii ay leeyihiin guddiba ay isku ogyihiin waa shay wax weeyaan xalaal ah laakiin boqolkiiba boqol waxaan hubnaa in arrimo badan oo xaraana ay isticmaalaan oo uquud xaraana ay galaan shirkad mukhtalita baa la yiraahdaa kala ah qaybta koobaad ee shirkadu naqiya waa la macaamil kara iyagu wuxuu xalaal boqolkiiba laakiin shirkadka nooca xaraanta iyo nooca mukhtalidka xaraanta wuxuu tusaale u yahay wal haram bayyin kuwa mukhtalidka ana wuxuu tusaale u yahay wabaynahuma umurun mushtabihat waxa arka saygu cilmiga isku hayo baad cilmiga kuleeyihiin warmay hadii ay rag qaar ay ka xumaato oo shirkadu wax way madax ka ah waxa weeyaan waad la macaamil kartaa adigu qaar ku diiday qaar ku ogolaanaya لكن أذوق وين قادتا وحكوفي عن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وحيش كل شك قليا كتب ما نقول عليه الصلاة والسلام طيب هذين أنت كصبحنا أنواع الكسب كسبك أما الشقة قفك إنه قبطه وقفك حوله وهلا لما وضوء مدبك هلا قفك حوله إما إنه كهله بعوض أو بلا عوض أنواع الكسب qofku inuu kasbiyo xoolo qofku inuu yeesho xoolo qofka ay soo galaan xooluhu qofku waxay ku soo galaan labada wada midkood imma bi'iwad wa in xoolahan qofku iwad uu ka bixiyo ama min duuni iwad wa in wax iwad ah ama bedel ah oo qofku dhaafsiistay waa inaan jirin qaybta hore hadaan u nimaadno kasbiga iwadka ah ee qofku uu wax ku bedeshay مثلا عوض عن مال وقفك إنه حول بحيه تبدأ وحي بسده بيع بالله إلهنا كسوا قيد عوض عن عمل شقات قبط قف بطو شقيسان الشقة دي مركا قبط يحكسين يا مشهر كام حال إلهنا الإجارة إجارة لإلهنا يوم والله بكريست ساعة قارة هيا لقا كريست الشقة دي بعد كسوا بحله حولها هذا الشيء كسبك هذا الشيء وحدكوه الشيء شقة قفك أبو قبطي عوض عن عمل بابو قبطي شقة قبطي شقة دي أبو قبطي واحد كوم تيستي حوله وسيدة إجارة داما كريسي أو كلا لغو كريستي موظفين تا ما أنتو حوية ميلاها كشقية أو قادوا قفك موظفك
مسائشي سيادو دونه شرعيا إنه هذا وح حلاش وح حرات عقوك إليه في باب الإجارة فقه مركز اللي تشوف باب الإجارة باب كوحويا كريسة هل كاسات كه لسه مسائش هذه حطها موظف شغال أما الدولة وشقي أما قف وحويا قارة وشقي مسائش هذا هل كاسات كه لسه قيمت صدحات عوض عن منفعة قف بتصالحان وحد كيب ستة منفعة قرية تكجرت أوكا قرية تكجرت ما دقاله ما يواكره محد يبستي وحد يبستي ومنفعه قرية لفتي سما دقاله ما يملي لكن بشا إنك انتفاع ستو أما أنت يشيس سنة دوية إنك منافع ستو هذا لا مركا عوض عن منفعة حولها مركا أذبحين يسوع يبدل كي هاي منافع عوض عن فرج إنه عوض كي هاي فرج وجوركي ومهرك الصداق كبروا مركا ما أنت قادنا يسوع مهر كمان أنت محيكو قادت وحيكو قادت عوض عن النكاح استمتاع مثلا أريد أقول كأيكو قادت مهر كاس عوض عن جناية قفك أنت صالحان وحلوجستي داوع بقفك لوجست وجناية وحامرك أرشلا أما مكتا أما تصالحان وحيالها قفك وقادنا مقابل كذا قفك وكقادنا أما قفك الله حقه وحل عرنا يا محي وعوض عن جناية شنطة هذا ينصالني وكسب قفك وكهري عوض واحد شرا كسبيه كله وبلا عوض قفك وكهري حكم إذا يا الهبة إن وح الوصية سماه حبال إسك كسب وكسب بلا عوض الميراث ودحلك وحويان والد كان دحل يسامى ولا الكامة عد كلوضات كان دحل يسامى حكم كم إذا كسبيه بلا عوض كأه قفك مسكهريه يا اللقطة طبعا اللقطة وحي لها شروط قاربين لها لكن مركز ما عدي يلون ويدو بعد فضي أما شيء وحنو شيء ذا شيء بعد دي أديك هذا إسكا يلاني صح ولا حولي الوصية أحسنت وادر دارنك نات صاحبتين أي دردارمي وحول في عنله أي وحول هذا بعدين بنته ثلث كي حوله وحسكله هبل لا وصية الوارث دردارن كاس قف وحوي دحل توجينه يا ما يلان كره dadka وحوي دحلaya iyagu xoolo dhaxal caadi ah qaadanaya wasiyada ama dardaaranka waxa iskale qofka aan qofka dhaxlaynin ayaa iskale baab dhan baa inoo iman doono insha Allah baab wasiya la yiraahdo halkiisina ku qaadan doona insha Allah waxa kale kamid ah sarqad ya الركاز صحيح ركاز معدن وحيالها معادن تقولك كصوبها وحكوا كم ذا إحياء الموات دول أنا عدلها هين بعد سكبيرت عدل يوم تكتبه لا يملكه أحد هذا سكقاطع وسكبيرتي وبيرات كسم يسوي وبريات كذا يسوي وحكوا كم ذا الغنيمة هذا سودي أفكار عن نقول يعني نشري مسكح هذا كلا بحر رحمة كلام هنا عقلكم مسكوب بيجمع الغنيمة غنيمة وجهادك وفرك ووحي قال هذا قفك كسوفرته يفيقي ويحلمها طيب ألقى مركا كسبنا أي الله وضع الله قيمنا يا على كل حال كل مسايش بيوع أرض يفرض وانتهي شيخنا حديث كواب وكسوقاتي تفصيل كمسايش يرمها نوع على كتب الفقهاء هذا أي علماء رحمة الله عليهم يكفها فهي سيدا أولاد علماء وحي هذا اللائق بالشروح الحديثية سيدة الإمام عبد الرؤوف المناوي في شرح الأربعين النووية وحكوها بومبو إلى هذا كتبت أحاديث النبي مركز الله شرحها عليه الصلاة والسلام اللائق بالشروح الحديثية ذكر الجمل وحيالها أصوش جود إلا الشيء هي مآخذ العلماء ما لها علماء مسائش يسوع خلافه رحمة الله عليه ما لها أي كسر كلاقاتين أما تفاصيل مسائش يفروع ديدو وكتبت فقه أي علماء رحمة الله عليه أي وحوينا أي كذا هذلان طيب وإنه نحكي لك إن شاء الله تبدأ نحن كسر نغضنا قرب كأركان تأيه شروط كسابسا قال رحمه الله رحمة واسعة شيخ وحولي كتاب البيوع مركبو جمعي البيوع وحسوق تقول يا بيعكي حلاش كي حارانتها أنت بشيخ وكهري كو حارانتها لفتي وذا أنواع فربضان وينقاري دونا إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وحول إذا تبايع الرجلان هدي اللبن أي وحكى لإبسدان
فكل واحد منهما بالخيار قف كستو لبدو ذا كمدا مت كستو لبدو ذا كمدا خيار أيوليه ما لم يتفرقا انتاني كالتجين وكان جميعا أي وذا شوغان انتي وذا شوغان أني كالتجين خيار بليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر أما متكوت ككلا انتانو الدور قلن أو يخير انت دور وجهه kala duwan baa loo xadiidka loo dabdiyay aw yukhayyir ahaduhuma al-akhar ama inta aanu midkood ka kale aanu khiyaar iyo door wax weeyaan aanu gelin oo khiyaar aanu u sameeynin fatabaaya ala dhalika sida hadaba ay wax ku kala iibsadaan faqad wajaba al-bay'u bay'aasi wa waajibaya nabiga alayhi salatu wasalam xadiidkan waxa ku sugan in bay'a waxa loo qaybanaya laba qaybood oo bay'un munajjaz وبيع مخير المنجز وبيع مركا على شرط تنجيزك يو تصالحان بيع مركا فلية احكامتيسي اي كترتيب سميسو منجز اما البيع الناجز بالله نوع على بعض وان بيع الله سميه خيار اما قفك وهلو كلا دورشو يبك انه سي ودو يبك انه سي ودو اصل وحوها بيع الاصل في البيع الناجز إيبك وحا أصل وها إنه نغضى ناجز لما يسترمي أفلي لكن على خلاف الأصل يضو أصل كتاس أي خلاف سنتاي شرعي وحيلو بالنية وحلا إلى خيار ما يربط سوقش ألابات إيبستي ألابتا إيبستي ألابتي واد لو ريكت يساقنا العكتي واد أشرت إنت بوسكا آت فرددو ولي أنا تكبحين واحد خيار ولا يراها إيبكا إنا تسعتيسو إنا تشوشيسو خيار بضلان وأنا حق شرعي وكسي ماها إحسان يسمى ظلمة وأرم شرعي وكسي ويا وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا انتاني كالتقين وكان جميعا لبضق في أي وذي شوغان انت قفكو الدور إليه إنه يبكيسي وسيوه إنه تشوشيه طيب لكن الباب كهذا كبحضه وهذا اللي بده خيارك خيار المجلس كلو نجي لوانا مانا خيارك واحد على خيار المجلس وحجارك يهل انت لبض قف اي ودا جوغان هديك ورن خيارك انت ugu badan waa inta laba qof ay wada joogan oo intii wada joogi karaan way wada joogi karaan maxay waxa joogi karaan wax aad u badan tusaalahan laba qof oo asal musaafiriina oo wada socda gaari baad wada raacdeen halkan aad ka wada raacdeen buro ilaa iyo Hargeysa 5 saacadood la sii soconaya gaariga sida marka uu kortay ninkii wax ka iibsatay mowlad ka iibsatay lacagtina oo shaqto inta gaarigaasi saaran tihiin ee midna aanu ka tagin aad isbarbar fadhidaan khiyaarkii wallahi khiyaar majlis laakiin marka midkiin daga ee meel kale oo qabto adna meel kale aad qabto khalaas khiyaar majliski waa dhamaan khiyaar majliski waa dhamaan marka khiyaarka waxa la yiraahdaa khiyaaru al-majlis wa inta labada qof ay wada maaha al-julus looma jeedo in qofku ay wada fadhiyaan hatta hada taagantihiin hada khiyaaru al-qiyam khiyaaru al-qiyam hatta idinka wada taagan marka majliska waxa lagu bixiyo maadaama ay badan tahay dadku inay fadhi wax ku kala iibsadaan ama qofka baayica wax iibinaya iyo qofka kale ay wada fariistaan khiyaar majlis waa loo bixiyay laakiin ama ataagnaadaan ama soconayaan hadii sida hadda inuu sheegay labada qof wada musaafiriinta wada soconaya safarkaasi ama socodkaasi aan noqdo baabuur ama faras ama maxay ahaydeen wixii la doono la isku raaco labada qof intii wada joogaan khiyaarka waxa la yiraahdaa khiyaar majlis sharcigu wuxuu ku siiyay weeyaan طيب وإن تكون شرط وقرب ورني موبل كان والله في عين هاي وقروح بدن هاي لكن خيار يصير لبع شو يصير هل مال يصير صدح مع الماضي يصير خيار دور كان مع الماضي أن كسر فكر سواء هيجو خيار كسر نوع لبعض وحلا خيار الشرطي يسوي لكن هو الشرط ولا وضع في واحد شرطستان وياني يسوي ما أهم مركي وهرب أوتوماتيك يعني كان هذا خيار مجلس كوراء مشاغل إيه كسر لو وقف وكسر واحد إيه بسدو ميل ولا تشوفه خيار كويني لكن ككلام حب هين عطسي ككلام حب هين محي عطسي بوبان عطسي قاسي مركا روحو كاي من كان قفكو wax iibsanaya inuu mobilka uu qurux badan yahay uu fiican yahay laakiin aan iska soo eego waa qofkii wax iibsanayay ayaa khiyaaru shartiga xidhay marna wuxuu ka iman karaa qofka wax iibinaya oo hadduu nasteex ku yahay inuu kula mobilka horta hadda qaado iska soo eeg hatta hadaanad eegin marka hore waxay noo iman doona buyuuc la yiraahdo al-buyuuc al-muharrama buyuucda مثلا محرم كأمو حويان حارانتا وحكمنا بيع المنابذة والملامسة بيع قفك ودو حصاو طابطو وسكي بسنة يبا
haddii khiyaar lagu siiyo adigu wixii aan eegin wixii kartoon ku xidhan maad eegin maad furin laakiin waxa lagu iska soo eego gurigaaga la tago 3 cisho soo hayso oo haddii 3 cisho gudahooda ceebaad ku soo aragto soo celi waan saxay wax weeyaan iibkaas wuxuu noqonayaa bayc saxiixa gurigaaga la tagaysa jaanis baad haysata ka soo baaraan deg soo eeg marka codsiga khiyaaru shardigu marna wuxuu ka iman karaa qofka baayica wax iibinaya marna wuxuu ka iman karaa mushtariga wax iibsanaya halka marka waxaan ku qaadanay laba nooc oo kamid ah anwaacda khiyaarka labada nooc waxa jamcinaya ama kulminaya magaca culimada shaafiiciyada ay isticmaalaan fi kutub al-fiqh khiyaaru at-tashahhi khiyaaru at-tashahhi at-tashahhi waa min ash-shahwa wa khiyaarka qofku isagu dooranayo ee sababta ceebi aanay keenin ama iibki inuu hoos u dhac ku yimi aanay keenin khiyaaru at-tashahhi labada nooc baa soo gudagalaya oo khiyaaru al-majlis iyo khiyaaru ash-shart waana labada xadiiska nabiga lagu sheegay alayhi salaatu wasalaam nooc kale jiro oo la yiraahdo khiyaaru an-naqisa alaabta markaad qaadatay mobilka hadhow ma shaqeynayaba kitaabkii aad iibsatay 8 warqadood baa cadaan marna mid ku soo lahayd kitaab aad iibsateen oo waraaq cadaan yihiin 8 warqadood baa ugu yar warqad kaliya ma cadaato 2 warqad ma cadaadan 6 ma cadaadan 8 baa ugu yar waraaqaha kutubta cadaan tayib marka kitaabkood iibsatay waraaqada cadba hadhow sharcigu wuxuu ku siiyay wax la yiraahdo maxay khiyaaru an-naqisa ama khiyaaru al-ayb waxaan ku gaari doonaa baabka soo socda insha Allah ta'ala mas'alatu al-musarrah neefkii la gaagixiyay markaynu gaari doono caanihi waxa weeyaan inta lagu kaydiyay dadna laga dhigay inay tahay neef caana badan khiyaar buu nabigu bixiyay alayhi salaatu wasalaam khiyaarkaas waxa la yiraahdaa khiyaaru an-naqisa ama khiyaaru al-ayb وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول البيعان لبدا قف wax kala iibsanaya bil khiyar كائنان بالخيار خيار بي كسوي شرع وخيار بوسي ما لم يتفرقا انتاني كلا تجين او قال من النبي عليه الصلاه والسلام حتى يتفرقا الى انت كلا تجيا تفرقا محله كذا بابدانهما تفرق بالبدن التفرق بالابدان وان جكودو وكلا تغو ماشي ودا جوغان مهردي ay ku wada jireen ay ka kala baxaan ay kala tagaan فإن صدقا labada qof wax kala iibsaday haday run sheegaan wabayana iibkooda wixii daldalool ah ay cadeeyaan burika lahuma fi bay'ihima iibkooda waa loo barakeeyaa baa nabiga alayhi salaatu wasalaam wa in katama labada qof wax kala iibsanaya haday wax qariyaan wixii ceeb ah haday qariyaan wa kadaba ay been sheegaan muhiqat waxa la siiba ama la tirtiraa barakatu bay'ihima barakadii iibkooda ayaa meesha laga saaraa nabiga sallallahu alayhi wasallam حديث كان حكيم بن حزام اسمه حسيات كان يا حديث كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما او خيار المجلس كي انه جيرو اي النبي عليه الصلاه والسلام تلمامه فاذا كان النبي كوسي درى عليه الصلاه والسلام اثر الصدق في المعامله لبدا قف انه رون شيغا ومعاملكوده او كدسناado run oo ku dhisnaado wax cadeyn oo ku dhisnaado wixii ceeb qofku inuu banaanka soo dhigo nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam iibkooda waa loo barakeenaya hadii laakiin iibku ku dhisan yahay wax qarin iyo been iyo tadliis iyo wixii ceeb in la asturo la qariyo iyo qofku in been loo sheego iyo qiimo aan ku soo iibsanana tiraado intaasaan ku soo iibsaday qiimo aan kugu joogana tiraado intaas uu ku joogaa taas waxay keenaysaa maxqul baraka barakadii in iibki laga siibo ama laga dhaxsaaro culimadu waxay isweydiiyeen labada qof baa la wada sheegay inay run wada sheegaan ama inay been wada sheegaan ka waran haday iskhilaafaan oo midna uu run sheego midna uu been sheego midna run buu sheegay midna been buu sheegay tusaalahan kii wax iibinayay baa wuxuu yiri aniga sheegani wuxuu igu jawaab qiimaha $10 kii wax iibsanayay baa wuxuu yiri meherad baa ku soo maray badhawdeedo la siinayo $6 waana beentii wuxuu doonayaa maxay inuu qiimaha hoos u dhigo marka midna hada run buu sheegay midna been buu sheegay kan wuxuu wariyay aniga intaas igu joogo 8 igu joogay intaas faa'iido ay noqotay 9 ama 10 midkood wax way gasoo kii kale culmay meherad dhaweed baan ku soo maro $6 baa la siinay wuxuu uga jeedaa in qiimaha wax laga dhigo taasoo kale culimadu raxmatullaahi calayhim waxay tilmaameen ka runta sheegay inuu isagu iibkiisu barakoobayo ka beenta sheegayna in iibkiisi barakada laga qaado oo aanay wala taziru wazratun wizra ukhra al-hafiz ibn hajar fi fath al-bari ayuu ku sheegay waxaana jirta qaacida culimadu raxmatullaahi calayhim ay tilmaamaan way dhahdaan ما كان كرا إنه هرب شيء إن كلا درس جانا مس درس كلوها مقابلة الجمع بالجمع
تقتضي القسمة أفرادا مقابلة الجمع بالجمع مقابلة الجمع بالجمع هذه الله جمع في اللغة العربية هذه لا إسقابل سيو ولا إسكهر كان الله جمع مقابلة الجمع بالجمع تقتضي وحكي إنسان إساء القسمة أفرادا إن مرمر يسوق قيبيه هذه قاعدة مهمة في الأصول وفي اللغة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا تصالح وحتري دخل الرجال بيوتهم يعني شيء هذا لوضع جماعة هذا كتير وحوين هذه الجملة رجع يقريها سماه والله وجمع الرجال بيوتهم دخل الرجال بيوتهم رجع واحد قال يقريهودي كذا وحلو كذا دخل كل رجل بيته تقتضي القسمة أفرادا بالمدة يسوق قيمانية نين والبا قريجيسي بوقا نين والبا قريجيسي أيوقا قري آن كيسي أهين مقلين دي هل قال فهم سماه marka xadiid waxa jira ku jira Bukhariga dadka qaar koodo yani dadkan la yiraahdo liberaliyiin waxa way afkaartan gurracan nusuusta doona inay dhinaca kale ay u jeediyaan ayaa mid baa wuxuu waxaan hayaa xadiis ku jira Bukhariga oo tilmaamaya ragga iyo dumarku inay isdhex gali karaan ikhtilaadku yahay shay mashruuc oo banaanba xadiis baan hayaa ku jira Bukhariga adeer maxaad u haysaa وحنوها يأكلها حديث ابن عمر يكون كتاب الوضوء من صحيح البخاري وحول كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا كان الرجال رقوا وحيا هاي والنساء دمرك وحيا هاي يتوضؤون قالوا وذوي سيسته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وقت النبي عليه الصلاة والسلام وذوي سيسنشل ورياه وهلكو النبي عليه الصلاة والسلام صففك وكي النبي كلا صاري يدي انت رجوا أن نقضان حاجة دم صفك الدمرك خير صفوف الرجال أولها شرق وحوية صففك الرجوا وحوجو خير بدنك وجوه الرجال صفك وقدم بي حاجة الدمرك السير حاجة كاسان وبشر بدن واحد تريبا النبي عليه الصلاة والسلام وحوفه صحيح صحابة الرجل الدمرك كونيس ده قالوا اللي ودويسيستو قاعدة دم بمرك هذا كم قانون دجال بيجرى في اللغة العربية مركل الرجال والنساء رجل الدمرك ودويسيسنشرين وحلو كذا مين ولا قبل يسلوي سنجر ها شيخ الرجال والنساء كل رجل مع امرأته المقابلة الجمع بالجمع الله بتجمع الله ما يشوف في اللغة العربية وحي كان سنة يسأل قسمة أفراد المرمر يسوق قيمي مرمر يسوق قيمي طبعا ما ترى صلاة ما كانت تقولني الرجي وحي فلان أما الرجي وحي كوران بابورتودي على قاعدنا إلا سكوك أصلا وقف والبوح ويقال وسقف فلان والله لا نقول وحويان بابور كيسي وكحيستويا تقتضي القسمة أفراد مركا على كل حال حدين لبضوا هم أي شيغان والله بركين يا إيبكم حدين لبضوا بين أي شيغان بركدي بالك قاعدة يا إيبك حدين متكون هم شيغان بككرنا وبين شيغان كرنت شيغان إيبكيسي والله بركين يا كبنت شيغان إيبكيسي بلا بركة على قدرها حديث النبي عليه الصلاة والسلام انتاس أيوت المامية طيب مسألة مركا خيار المجلسكم وشيء مشروع وجرة وحا النبي كدق عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكجرة السننك ولا يحل له في صلاة ما دام النبي يقول عليه الصلاة والسلام حتى يتفرقا معناه يوم حي لا بد قف انت وذا جوغان لا بد قف انت اي وذا جوغان خيار بيليه لا يرى خيار المجلس وقفك ايبك واك نقون كرا خيار بولي هذا بقفك ما هو بنانتا يقول قفك ددجيو سي لو كلا تاغو si iibkii ama khiyaaru majliskii meesha looga saaro oo labadan qof sheeka wada socotayba wax fiican buu arko qofku uu iibsaday dabeetana inuu sheekadii markiiba uu dhameeyo oo cararo oo baxsado oo sida horta khiyaar majliskii meesha ka saar ma u banaanta xadiidka ku jira sunanka waxa uu tilmaamaya min xadiid Abdullah ibn Amr buluughan ku gaari doona insha Allah azza wa jalla wala yahillu lahu an yufariqahu khashyata an yastaqilahu وما بنانا قفكو إنه قفكو وحكي بسداء وكعرره سي إساقو كبقايا إنه كنقضه خشية أن يستقيله لكن هذا هو حاجة يبسطه شيء كذا لما يسطه واسكتي كرتان لكن إنه قصده إنه كعررته ماشي سأليب كيلو بوان دي بسوعلي أرنت نوعاس أرن بنان معها
laakiin waxa sameyn jiro ay ka ansaxday Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma saxaabiga Abdullah ibn Umar waxa ka ansaxday hadduu wax iibsado inuu markiiba degdegi jiro meesha uu ka tagi jiray si aan iibkii qofka aan uga noqon waxaana la yiraahdaa xadiidkan hadda inuu sheegayna muu gaarin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa ardahuma wa illa saxaabada nabiga kamida inuu khilaafo xadiis nabi alayhi salatu wasalaam isagoo og qiimaha xadiiskaas uu leeyahay wax dhici karma لكنه لم يبلغه الحديث حديث ما سوى قال عبد الله بن عمر مسألة بعد حديث كان خيار المجلس وحكى له استغنى أن كعمل فلن أو أن قادا إمامك وينا إلى ولنشري نعم أحسنت ومعروف كوا حديث كخيار المجلس كمركز طول سوق قاضو علماء عن حديث كقادا معناه هذا الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه صاحب الموطأ حديث خيار المجلس كما عمل فلن مذهب كيس مالكي كان كما جرتبع علماء المالكيه ما قبان وحلا خيار المجلس امام مالك ما كورمه والا ماذا كتب يسوي امام ما قاطع حديث marka taasna ahlu cilmigu waxay tilmaamaan acdaar culimada waaweyn islaamka iyo diinta u khidmeeyay ahadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam iyagoo og inay ka ansaxday nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ahadiid saxiixa ah oo sariix oo xukunkeedu cad yahay ma dhici karto inay ka tagaan لكن وحجرت أعذار يعذر داريو كان إن علماء أي كتجان حديث أعذار تاسنا وحأولوريين من وكما شيخ أولوريين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتاب كسلوه يقال رفع الملام عن الأئمة الأعلام رفع الملام عنان تعلق قرقاضية عن الأئمة الأعلام علماء وين رحمة الله عليه مركا إلى طبعا عذر دار وصدح عذر دار markii dambe uu ku soo koobay ayaa uu u sheegay culimadu in ay xadiiska ay uga tagaan laakiin qaacidada waa inaad aamintaa ma jiro caalim kamid culimada muslimiinta ama an noqdo al-imam Abu Hanifa ama an noqdo al-imam Malik ama an noqdo al-imam Shafi'i ama an noqdo al-imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim ajma'in ma dhici karto inay ka tagaan xadiis nabi alayhi salatu wasalaam oo saxiix ah oo sariix oo mas'alada ku cad in xadiiska ay khilaafaan ma dhici karto لكنهم أما حديث كاس أكتوده وحول نقطة ضعيف أما حديث كلو كحوق بضن أي اسموتسيان أما أكو صحمان أما أكو قلدمان لكن أرنتاسي مردعي كرتو حديث النبي وصريحة إني كتقال باب ما نهي عنه من البيوع وحبابه يهي أحاديث لإسدي دي هذا مركن هالكا مرينه وحالكا إنه شيء دونا إن شاء الله عز وجل إيبكو حوليه هي أركان iibku wuxuu leeyahay arkaan buu leeyahay arkaantiisa haddii la soo ururiyo waa 3 rukun haddii arkaantiisa la faahfaahiyana waa 6 rukun haddii soo ururino al-aaqidan rukunka koobaad al-aaqidan waa labada qof ee aqdiga wada galaya al-baa'i' iyo al-mushtari weeyaan al-aaqidan rukunka labaad al-ma'quud alayhi labada shay ee la isdhaafsanayo al-ma'quud alayhi labada shay ee la isdhaafsanayo rukunka saddexaad as-siighatu siighada oraahda hadalka wax lagu kala iibsanayo طيب intaas markaa u baahan maxay hadal bay u baahan tahay iyo shuruudo doora taasina dul istaagi doona insha Allah طيب arkaan al-bay' waxaanu ka dhignay al-aaqidan المعقود عليه iyo الصيغه hadii la soo duuduubo saddex bay noqon hadii la kala saarana aaqidaanka waxa ku hoos jira al-baa'i' wal mushtari kii wax iibsanayay iyo kii wax laga iibinayay kii wax iibinayay iyo kii wax iibsanayay al-ma'quud alayhina waa labada shay la isdhaafsanayo oo ka wax iibinayna wixii uu iibinayay buu dhiibaya ka wax iibsanayna lacagta uu bixinaya halkaana marka laba ku hoos jiro al-thaman wal muthman العقد يشيء وحوي ليبسني صيغتنا لبا شيء اسلا كو هوس جيرو oo maxay الايجاب والقبول واجابك قبولك حويه وان كائبي وان اقبلي طيب هذا مid walba inuu istaagno mid walba waxa leedahay shuruudo ka hore oo ah al-aaqidan labada qof ee aqdiga wada galaya shuruuday leeyihiin shardiga koobaad iطلاق التصرف وإن قف كان وياي قف تصرفي كراية وإن وياي قف وحويان تصرف أما إيب قف كلي كرا وإنه كوح إيب سنية
يك وحيبين حاسو قد قال إطلاق تصرف سو قد قال وإنه قد قف عقل له وإنه قد قف بالغة وقنقارة وإنه قد قف تصالحان رشيدة أو وحويان يعني قف سفيها أو دمان قابا أنا هاي قف وحويان رشدي إلهي سبحانه وتعالى وكل شيء marka qofka xoolaha ama agoonta marka xoolahooda lagu wareejinayo way leeyahay rushd waa in qof wax baayici karo waxa soo waxay soo gudgalayaan maxay itlaaqu at-tasarruf qodobka labaad labada qof laga doonaya waxay tahay عدم الإكراه waliba halka waxa ku soo daraysa bighayri haqqin wa inaan wax dirqin ah meesha aan jirin oo ka wax iibinayana waa inaan lagu qasbin waxan inuu iibiyo ka wax iibsanayana waa inaan lagu qasbin waxan inuu iibsado xaq darro يدعو وحوي قصب كاسوي لكن واحد يكره قصب مركه قاركود صح واحد يكره ما يكراه بحق سيده قفكي مفلس كاه قف با كعي صحيح يلا سوتا قف با تصالان كعي دينتيسي iyo xoolihiisi ba kala batay sharcigu waxa uu tilmaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam uu sheegay waa in xoolihiisa wixii hantiye uu leeyahay wixii daruuri mooyaane wixii kale waa in la iibiyaa oo lagu qasbaa waliba inuu iibiyo si dadka xoolahoodii تصالحان مثلا أيوة صغروته هل كان نقول فينا عاقدانك والله والله قف عقد كوذا قليل بائع يا مشتري قضبك أمركم كلا بعد معقود عليه جه والشيء اللي يبسنه يلا عقد وحلقوا يبسنه يجنا وحشرت كو أن يكون طاهرا وحن أد يبسنه سواء نقول وحن نجاسة وأن نقضى وح طاهرة وأن نجاسة هاي لبا منتفعا به وح منافع له او فائده iyo waxtar leh waa inuu noqdo waxana diibsanaysa oo wixii bila faa'iidada waa inuu sheegi doona insha Allah ta'ala dhowr tusaale wixii bila faa'iidada ama bila nafciga halka wuxuu noqonayaa waxaan banaanayn oo iibkiisu aanu ansaxayn saddex lil aaqidayn alayhi wilaya labadan qof ee aaqidaynka shaygan waa inay ku leeyihiin wilaayo macnaheedu waa maxay waa inuu waxan qofku uu leeyahay waxan uu ka iibinayo mamluuk waxan uu isagu leeyahay milkigiisa ku jira waa inuu yahay ama wax uu u haysto fasax wadan ku raado mobilka maanta aanan lahayn ama kitaab aanan lahayn ban ka iibi yado مثلا dhinaca tasarrufka aan fiicanahay waxaan ka iibinaya wax daahir yahay wax fiican uu yahay waxa ka faa'iideysa uu yahay لكن ماشي ما حكى مقن شرط ما كما قال وحن أنو الله يهي وما هذا هنتذا إذا ما أبدي مركا للعاقد عليه ولاية وأن وحن أما أضو الله هي أما أتفصح إذن أضو هاي ستان مقدورا على تسلمه واحد بيبي كرتو قفك عطسين كرتو وإنوية حوالله يقول لي قدعي هاشي بريقي أنواي كبيتوكو يقحر كم بيوتر كي بريقي للبحي هاو جزان كايبي ما صار يصدق وهي حتى واحد لا هي تقدبين كرتو معاه عدم وحا يكون درين عفوا ومعلوما وانه شيء شيء معلوم ولا يسلا غرانيو شيء معلوم ولا يسلا غرانيو اما ايشو اي كدعيسو اي قبليسو اما شيء ماشي كما قال لكن صفوينكيسي استاميسو اي عدي بيع السلام اي نكو غاري دونا ان شاء الله شيء اما waa inaad arkaysa ama waa in sifadiisu ay ku cad taasna waxa loo shartay macquud alayhi xaga siiqadu waa oraahda madhabkeena shaafiicigu aad buu u adkeeyaa qodobka ku saabsan siiqada sida awgeed arkaanta mas'ala kasta ama bay'a masaa'ishiisa baab kasta oo kamida arkaanta marka la tirinayo waxa lagu soo daraa wasiiqatu iyo oraah qaacido marka guud ba culimadu ay ka hadlaan waxay yiraahdaan hal al-ibratu fi al-uqud lil-alfaz wal-mabani am lil-maani يعني عقد marka maanta la gelayo عقد maanta uu guntamayo ma sharti ba lafdi imeesha la keeno mise wax kasta oo labada qof ay wax ku kala iibsan karaan iibku ku ansaxay madhab Imam Shafi'i waa adkii waxaanu tilmaamay wax walba jamiic al-uqud inay u baahan tahay ijaab iyo qabuul siiqo oraah way baahan kitaabka marka ka iibinayo inuu ku raado bi'tuka wa ka iibi hadda tira qabiltu bay'ahu iibkiisa wala qora حنفله إحنا سيف عنه حسنا نكاح أبو النكاح يسوي كيس وعديه صيغة ما شاء الله ولي بين هلك نعم بين وقفي عنه وقفك جورسنية وحويان شيخ جورينية ولقى ما ولقى وحوي وكيلك كأها ما ولقى نفتي يسوي هذا زوجتك وحنكو جوري فلانة
هبلايا كوغوري بمهر قدره كذا وكذا مهر قدر كي سناعه هدي ويهي وكيلنا سيدا الشيخ سيدا هذا الله سميع عادد أي كدر رتين ولي وام يسوق جورين شيخ وكيشنا زوجتك فلانة بوكالة وليها إياي وولي وكيش بمهر قدره كذا وكذا مهر قدر كي سنتوي ورادنا هذا واحد قبلت حتى إن يرى قلبه القصر صلاة سيف عنك وقلوا قبلت نكاحها بالمهر مثل وصيغة علماء الشيء يعني بيوع عمرك اللي تشوفه وطاس شافعي مركب باب والبا سيدا نكاح يوات كان يسو هل كان مركب بيع اللي تشوفه يقول سيدا بيوات كان لكن على كل حال حديرة مودة حق بيع وكان هوش أي آدي أظننت أيوات كان يسو هدل إلى وحي والبا وحل شرطنا يا وإنه قفك وهضله سيدا أوجد بيع المعاطاة مذهب كجود مركب مذهب الإمام الشافعي إيبك الله يقان المعاطاة وقفك إنه سوق له مهرات وأرنتي تصالان سعرك وكتب القرآن وأركو والعقد ودرا وهلكا كبحو إيبك علماء الجمهور كده وأنصحين أيام لكن أئمة الشافعي رحمة الله عليهم مذهبكم وحو قوائمك سنان وأنصحين حبض بيه ما تتصوق هذا ليس يكون خشينا تكبر حين يسمى الله وضعكم أما صدح لكم ماذا الإمام الشافعي وحو قوائنا أنصحين لكن كستو إمام النووي وخلافي أو تلمامي هوشاسي هول أضق إنك تاهي وبيع المعاطات صحيح وياهي عند الإمام النووي رحمة الله عليه مركع على كل حال لكن حق بيع حق النكاح إن أتكيه كنت يدوى وفي عنتها وهوشاس ما دام شرع واحتياطه والشرع وآدي وجود ذاله وحي كسابسن أبضاع أما كسابسن مثلا جورك وحي لمده وعردك وحي دمرك مثلا وحي لمده وحيالها نوع جورك فروجته مسائش لمدك نكاح الله أتكيه لكن بيع يسجع الله يرفض ذي مسألة وحاسب في عنه قهر ليا شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كيس القواعد النورانية هذا الكتاب كتاب نفيس وكتاب قواعد ولما قواعد وحكو قرآن قواعد جامعة كلية قواعد جود وحوي من أبواب باب الطهارة مكاسوي يسور برديك أفرت مذهب كوقفض ذي حق الطهارة مذهب كأتكية حق الطهارة يؤصول المسائل كالسكوها يستو في كل باب أي أو المامية كتابك شيخ الإسلام ابن تيمية إسكاله واحد حقيقي الدكتور أحمد محمد الخليل وأنا نقدر أن كتابك جزاه الله خيرا شيخ كتابك تحقيقي نفع الله به الخلاصة شروطها سي وحمرك أي نقول إن سيدي دام حي الله إلى عليه قدر كصيغة كسابسون أما أراها كسابسون حق إيبك يضوح إن نقول إنسان قدر كاس نوعا ما النوع عضيق وكتشره oo aynu iska oran karno qaacidada aynu qaadan karno ahlu cilmiga ay yiraahdeen al-ibratu fi al-uqud bil-ma'ani la bil-alfaz wal-mabani al-ibratu tigelin waxa ah fi al-uqud aqdiga markaynu maanta joogno bil-ma'ani wa in qofkani wax uu ka fahmi karo waxan inaad ka iibisay wax uu ka fahmi karo oo raali haasho meesha inuu jiro ayaa iibku ku ansaxaya أينان الشرط أهين إن أدوح والباطرة بيعتك وكائبي أنا أترى قبلت بيعه يبكي سوى نقول إنان الشرط أهين كاسا أنا وحوي رمت وافق صن نصوص أدلة فربضا وكشيخ وكشيخ كتاب كان القواعد النورانية طيب أنت هذا كجدبه باب كان شيخ بابي وكسب سب يعدا حارنته أصل يبكى وحواه حلال نمو وقاعده إيب وحا أصل الحل إن وحا سويها حلال إلا إن ترى مانع ديدية وتصل على قواعد إنه تمام الدون إن شاء الله عز وجل الشرع وحكو حرام تنمية ميت كود مويان وأحل الله البيع وحرم الربا الله عز وجل يقول إيبك إلهي وحلالي ربا لكن الله سبحانه وتعالى وحرام تنمية إيبك حرام علماء رحمة الله عليهم waxay ku tira kooban ilaa 40 iib ayaa بالنص soo arooray in wax weeyar ay tahay muharram kitaabkeena cumdaha mar aan tiriyay ahadiista iyo kitaab al-buyuu bilowgiisa ilaa dhamaadka waxa jirta ahadiis tilmaamaysa iyo xaraan oo sheekh baab kana aan ku sheegay meel kale oo ku sheegay waxa taqriiban ay gaareen ilaa 25 iib oo ku qoran ahadiista cumdatul ahkaamka oo nabigu xaraantimay alayhi salaatu wasalaam nin sheekh oo kamid culimada wax ka dhiganay oo risaaladaydii baxsigaydii PhD ama doctoraga ku qaatayna sheekhi in niqaashay
أما بحثك شيخي يعني يقسحي أها والله إلى هذا الأستاذ الدكتور سليمان الثنيان وحقري كتاب وبحيي الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها أحاديث تقصى أرورتي إيبك حارانتا شيخ كتاب كاو حكوروري أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اتلمام يسا إيب حارانة الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها وحو قارسي الله وقل يلحي صد الحديث وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كم ذا وتلمام يسا إيب حارانة الله وقل يلحي صد الحديث أي شيخ قارسي وحو بقول يلبي أفرطا كم ذا صحيحة بقول يلبي أفرطا الحديث وكم ذا الله بقول يلحي صدنك أي صحيحة بشيخي haddaynu soo koobno 6 sababood mid baa waxay keensadaan iibku inuu noqdo xaraan 6 sababood midkood baa waxay keensadaan iibku inuu noqdo xaraan sababta koobaad shaygu inuu noqdo ma kaana manhiyan anhu lidaatihi in iski sharcigu u diido shaygaas oo ka dhigo xaraan sida midalan bakhtiga almayta sharcigu ka dhigay xaraan doofaarki sharcigu ka dhigay xaraan أيجي إلا إيبيو أما اللي إيبسدو شرع وقدر حرام تصالحان قبضوا هدي شد كذا إيبسو والعياذ بالله حولها قادنا يسمى إيب كاسو نقولنا إيب حرام قفك ساحرك أما قفك وحرقه أما فاليها يوحي لما تسقون وحو قادنا يإيب كهالك كتشر يسنا نقولنا يا حرام بيع نوع أصبح له منهي عنه لذاته اسكي وياه حرام شيء اللباد أما سببت اللباد كينسته يكون نقض حرام أن يكون بيعا لا يملكه الإنسان إنه نقض الشيء أو أما واحد ترى أن يكون الشيء بيع ما لا يملكه الإنسان إن وقفك إيبيا وحان الله يبدل أما وحان هذا أنا هيسم أنا هنتيم بقى سيدة تصالحان قفك إنه له بضع عطى إذا إيسو صعوته الديارة إيسو صارن أما مركبك إيسو صارن بان كايبي كاين العقد وحين نقول نسوي حملنا هنا وإنه تلمام دون إن شاء الله تعالى إن بعض الشركات كقاركود سلاح يكون شقيان وبنكيدا قاركود وحيلا بيع المرابحة إلى هذان وأسر كيدو بنان سورة ده هذا قاركود تصاليال بينو كينو دونها بين دم إن شاء الله قيب تصدحات بيوعنا واحد الله يقال بيوع الغرر واضحة وقف كإنه حويان قف وحان وقرنين وجهل وكجتشيرو إن قفك الجود هذا إيبسو سيدة تصالحان حديث تنو إنه دونت الملامسة واضحة بيعة وحلورنا عندها يسكو قبو قعنت هذا كتابته ساسة كويبست الملامسة عليها وبيوع الجاهلية أما قالوا ذي يحكوا يبسن جلتويا وهذا محرم وغرر وجهلي وقفك وحان وقرنا إنه قفك يبسني بيع الحصاه دقحان تنقاضو أو دقحا وحكستو أو كتورتو مرضى دقحا وكدعو أديقا إسكالي أما واحد يبستي مرضى وحوي دقحا وقاري وحي لمدة تاسو حين وانا سبيع محرم وغرر باكوتشرا المنابذة الملامسة بيع الحصاه وحاصل إن شاء الله وبيع لين قاري دونه هبين دمي إن شاء الله عز وجل غرر باكوسنا مريه أولي أم بسلام وقيت كسار أولي أم بسلام وهذا الله بيري أما أولي أن لبيرين به إن نقول هذا شيء يبسو وبيع محرم وأمرنا هنين وايو إيش هذا واحد قبل يسمى عرك يسمى شيء أفراد أما صوبت أفراد يكين ستا أسبابت فساد البيع بيعين فساد أو محرم النقضة الربا إن الربا قش وأنا باب بلارن أو واسعة ربا ده أما أن نقطة أشياء الربويات كأ النبي عليه الصلاة والسلام وشاقي وحيالها الربا ده أي قشوا اللي سكوي بيو يدعو لك على بعضنا هيو أما إن دين وحوي لجلين هي أما هي وحي لمدة شيء شنات أما صابته شنات إيب وفاسد كل نقضه وحيتهاي دخول شرط فاسد في البيع وإن وحويان شرط فاسد إيب كنحدي سين لدح قليو قفك وح شرط استوه وحان شرع وان وقلين صابت اللحاد أن ينهى عنه شيء إن للديدو لأجل كونه ضررا على شخص آخر قفك لأنه كوية هي ضرر أما دب وعدك له قفك وكل بايو طيب هذا إن شاء الله عز وجل وحي ير وحن دول استاجي ودور تصارع أرمى هذا إنه شيء قلنا وحكى بحنا يوم أمثله بزي أي قار الدب بنور جندنا إن شاء الله تعالى هدي أن كقول هذا وحادي جايب ستا مثلا تصل عن كتاب
مثلا أن درسدي أما كتبت إيسو صعدت كتابك فتح الباري إيسو صعد بان كائبينيا ولي أنا بارك صفدي سنة أنا هينين يبقى سؤال نغني إب محرم وحانو حرام نغنيا وايو دي waxa ka maqan maxay aragtidii ama cilmigii iyo wixii la mid suwarka kale ee midna soo gudagalay kara waxa kamid ah ta hadda aynu sheegnay waxa dhacda marmarka qaar kood waxa loo yaqaan bay'u taqsiid waa shayga qofku inuu ku iibsado hafto waa shay mashruuc oo banaan waxa lagu oranay midna tusaalahan mobilkaas haddaad iibsanayso lacag naqada aad dhigayso waa $100 haddaad amaah gelinaysana oo 6 bilood aad doonayso si haftaa inaad ugu bixisana waa $150 alaabtina waa tan mobilki waa kan hadda aan hayo labada aqad midkood baad geli kartaa inaad gasho aqadka tilmaamaya $100 ee hadda naqad aad ku bixinayso iyo inaad gasho aqdiga labaad ee $150 aad ku bixinayso muddo 6 bilood ah labada aqad midkood hadda doorato waa sax laakiin waxa sharti ah in alaabta ay noqotaa waxaan qofkan ka iibinaya wuxuu hayo waa in noqoto iibkaasina iib saxiix oo sax ah noqonay waana waxana sharti waa inaan marba aan wax ku kordhin hadii bankigu uu kugu dhaado alaabta hadda aan ku sheegay haddaad 6 bilood kala habsaanto 7 bilood 8 bilood ay noqoto bishii walba $10 ba kugu sii kordhaya wuxuu noqonayaa ribo nasii'a weeyaa waxana noqonaysaa muharram هذا هو حياة هذا الدعم حاكم ده بيع تقسيط كلفتيس وحلقوا ورنا يا بابور كنوع عاصي مجلس عيسى شيء شركتي ساينو سلقرنا وحلقاسين يا $5 مركوية هي نقد هدي أماها تكون يسوع سي هفتا تكون بحين سنة أو 6 بلود أدوني سنة تكون بحين سنة وحلقة قاعدة يسديت كل $1 لبدا عقد متكوت قل شركته سيدا مركا أي كله ده جارجة ما هي سبب معرض كبابور تأبو تكتب بابور تكتب سنة جارجة ما هي ما حالة النوعاسة waxay noqonaysaa inuu ka iibiyay waxaanu isagu aanu haynin waa bay'u ma la yamlik waa waxaanu haynin inuu ka iibiyo weeyaan mid baa jirto oo bay'u salam wax la yiraahdo bay'u salam waa maxay waa inaad muwaasafaadkaaga adigu adoonayso aad sheegato lacagtana aad qadinto shayguna uu ku dambeeyo waqti dambe uu ku yimaado laakiin kaas isaga bay'u salam baa la yiraahdaa shuruud gaar ah baan leeyahay waynu gaari doonaa insha Allah azza wa jalla laakiin maanta waxa jira waa maxay وإن قاريga marka laga iibiyo ee muwaasafaadkiisa iyo shuruudiisa wixii soo dhamaystirto lagu baadi doono iibkina uu dhamaadayba uu ku dhamaado shaygiina hadda wax weey lagu siiyo waxaan qofku ka iibiyana wax qofku uu hayaba ma ahaba xaaladda noocaas marka ishkaalkaas ayaa ku soo arooriyay مثلا waxa kala aad ugu badan tahay bacdlayaasha bacdlaad galaysa waxa doonaysaa tusaalahan kabo waxaan doonayaa kabo baabuur noocaas lambar buu ku dhiibaya tusaalahan 930 waxaan doonayaa lambarka 40 ka sareeya lambarka 40 maxaad iga siisanaysaa lacagtu isku waafaqday $10 $15 $20 isagu markaa ma hayo lambarka wuxuu tagayaa jaarki saaxiibkii buu tagayaa meerada ku xigta meeradii buu ka soo qaadaya uu ku keenaya sidii buu kaaga iibinaya ishkaal baa halka jira waa maxay waxaan ka horto qofku ka iibiyo wax isagu uu leeyahay maaha هل حالة وين أنصح يسا وحالة قف كنت صاحبك وتقولني ألابتا كمان وين كاي بسنة محد قصينيس تصال هان سبب حكوسو يبسدي وشاركي سام صاحبك وكسو يبسدي $10 أديك إنه حكاسي يشاني $10 وإيب وصح شروط السنوات دميستري طيب هدي لكن أي نقطة هي من وين كو إيبينيا وكيل بو نغنيا وكيل كنا كو تصرف مايو وحي تصال هان مثلا هدو كلها لبي $10 سي أفري $10 مسينكر waayo waxa noqonaysaa qofka meheraddan kugu xigtay jaarkaaga qof wax u iibinaya ma noqonaysaa xaaladda noocaas wakiil baa lagu oranaya imati qof baa'ic ah oo isagu iskiisa wax u iibinaya oo ribx iyo faa'iido saaran kara laakiin wakiil marka tahay faa'iido ma saaran kartid waayo aslan adigu waxan ma lihidba marka shayga laakiin waxa wada sharci ay kugu noqon kartaa inaad adigu iibsato oo shayga aad tirano shayga waa ka iibsad $10 baan ka siistay meheradaada aad keensato marka dambana qofkii kale aad ka iibso waxa qalad noqonaysa aqdiga inaad dhamaystirto oo qofka lacagtii aad ka shubato adigina wali shaygi ma haysid waxa doonaysaa in saaxiibka ka doonato ama jaarkaaga ama dariskaaga wixii lamid waa khatar weeyaan arrimaha noocaas oo kala qofku inuu ka iska ilaaliyo si aan ishkaal aan ugu keenin weeyaan مثلا تصالحان وحيالها حشرات أما عيان كقفكوا إنه يبيو أما تصالحان مثلا دان يرد قفكوا إنه يبيو أما مثلا بهلها يعني وح أغارصدا أما وح عنا قفكوا إنه تصالحان وساق هذا قفكوا يبيو
يبقى نوع ما صحيح نعم يصح أو ما يصح قالوا ما يصح فالموضوع حتى رحمة الله عليه ما أنصح سواء دانير كأما تسأل عن بحر وحنا يمان أنا أتوقع تمنت إيبسان وحكم عن شرطي منافعس فائدة كتير ما دام أنا فائدة أنا كتير ونحن قلنا إيبان صح بحلنا قار كود لكن إنه قفك سوء إيبسده هذا وكدونه يصاب وجارس سيد أيق الله توبره وحلا برا وبحلنا قار كود الله توبره سيد هاري معدها يوحي لم يتكع haddii laga doonayo qofku inuu tababaro oo hadhow wax u soo ugaarsanayo manaaficsiga ku jira iibkeedu wuxuu noqonayaa mid bannaan ijmaacna waa lagu soo naqliyo haddii qofku uu doonayo inuu wax baro waxyaalaha kale ee maalan cilmiga ay banneeyeen waxaa ka mid ah sida qofku inuu soo iibsado maroodiga ama maalan la soo iibsado dameerkii oo kale isagu waa manaaficsi iyo dhammaystiran shimbiraha qurxaha badan ee aadka u quruxda badan qofku inuu ama kuwa codka macaan codkooda qofku inuu ku raaxaysto guryaha inta meelaha sudhoqdana qofku waxa weeyaan marka codkooda uu maqlo uu ku waxa weeyaan codkaas cod ku raaxaysto ay noqoto waxyaalaha noocaas ah cilmigu waa banaayay raxmatullaahi calayh shimbirta albabaqaa ay dhacdaan qofka ka daba hadasha ama shimbirahan waxa weeyaan midabyada kala duwan ee qurxaha badan leh waxyaalahaas waxay noqonayaan wax mubaaxa oo bannaan waayo shuruudihi hadda inuu sheegayna baa laga helaa dameerka waxaan u jeedaa khamriga iyo doofaarka iyo manaaficsigooda khamrigii doofaarkii iyo wax kasta oo doofaarka ku dhex jira doofaarka sharcigu waa adkeeyey qur-aanka iyo xadiista waddanka ku arka xurmatu calaykum almayta waddam walaxmu alkhinsiir bal maanta waxaad eegtaan gaalo sida doofaarka maanta ay u aaminsanta waxay doonaan wax walba inay ku dhex daraan xataa cuntooyinkii la cunayay bay ku dhex dareen saliiddiisiba ay doonaan dadka inay waxa weeyaan wax uga dhigaan xataa biskullada qaarkood baa la dhaha waxyaalaha yar ee biskulka isugu dhegsan wax yar la isugu dhajiyaa wax weeyaan waa dheecaankii doofaarka ama waa wax isaga ka mid ah marka meel bay runtii khatara ayaa ay gaarsiiyeen dhiiggu waa nijaasti ma la iibin karaa dhiiggii maqribka hadda aniga hadda maqalin qof baa u baahnaa dhiig macduumo la waayo ka warrama dhiigagga macduumka dadka noocaasa haysta hadduu marba waxa weeyaan dhakhtarka weyn uu tago dhiiggiisii uu iibiyo xukunkeedu muxuu noqonayaa ma la iibin karaa aljawaab la lama iibin karo waayo waa shay nijaas ah يحرم بيعه ديجي إن إيبيها حرام بين غنيسة لكن العلم واحد لما قفك ديجي أتكشف غنيسة إحسان كقول سمينيا مكافأة يا أبا المرين واتسين كرتا هذا كعقاته تقول حواي لو تضح قاته معها لكن هذا قفك تصالحان ما دام يدعي كرتا ديجي معدومة وياي قفك مكافأة مع أبا المرين وعاسة قفك ولا سين كرا وحين كسر جبيننا هنا مسألة العلم قد أي بحثيان هذا عصر إنه حكم ده حبناها qofku jirkiisa ama xubnihiisa ma baxsan karaa oo مثلا tusaale ama kaliyahaaga ama tusaale ahaan مثلا kali qofku cid kale ma u saari karaa taas waa tabarruci ma iibin karaa oo iib iyo xoolo qofku ma ka dhexdegi karaa oo masaa'isha waxa ku jirta runtii nawaasisha ah ee cusub culimaduna raxmatullaahi calayhim aqwaal ilaa saddex qowl ay ka leeyihiin qaar marka horeba diida qofku inuu tabarruco oo dhaho qofku jirkan isagu ma laha jirkan ilaahay baa qofka ku aaminay waa loo dhiibtay waa lagu siiyey laakiin waxa lagu guuri waxa weeyaan de naftaada inay dushaana waa xaraan jirkaaga inaad si kale oo ilaahay aan kugu talagalin aad ku tasarruftaana waa xaraan iibka ahlu cilmiga qaarkood waxay baneeyaan qofku inuu tabarruco waxay ku leeyihiin qofku hadduu dardaarmo oo yidhahdo haddaba taydii hadday noqoto jirkayga wixii tusaale ahaan looga baahdo dadka muslimiinta waa loo saari karaa waa tabarruc baa la yidhahdaa iibku isagu wuu ka sii daran yahay qofku inuu yidhahdo markaan dhinto wadnahayga la iibiyo oo tusaale ahaan maalan beerkayga la iibiyo oo keliyahayga la saaro la iibiyo oo xubnaha kale waxa jirka laga saaro la iibiyo taasna iyaduna waa ka sii daranta marka cilmiga raxmatullaahi calayhim raxmatan waasica qaar baneeya iyo qaar diiday inta way isugu jiraan waa masaa'il aad u hadal badan aniguna wax ra'yi kuma lihi insha Allah waxaan sheegay mas'alahaas inay jirto oo ahlu cilmigu ay isku khilaafeen aadna ay u baareen halkaas insha Allah tabaaraka ta'ala ku joojin doona habeen dambe inuu amthila kale ku soo dari doona biidhnaahi azza wa jalla جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه نعم المهم هو السيلة آد وجهتها مثلا dadku waxa dhacda buu in gacanta daynta la is saaro ninkii xoolaha la isagu halkan u taagan marka nin kale oo dilaal oo meesha maraya baa gacanta u dhiibaya ninka kale oo dad waxba la isku waafaqay wuu wakiishay laakiin soo ma mar hadduu wakiishay oo urinayo adigu daada suuqa fahmayo suuqa garanaya dee adigu ragga iga celi oo waxa weeye ragga si fiican u la heshiiyo ana waxaan ku gowracanay waxa dadka kula heshiiso خلاص وحسي إذن بمركا أسي مركا للعاقد عليه ولاية وتنو شيء جناي أو قف كاسي فصح بقوها يستا تصرف
wuxuu ka dhigan yahay sida wax isagu leeyahay oo kale calaa kulli xaal qofka xoolaha leh hadduu isagu wakiisho qofka kale ku gowracan yahay sida qofka kale uu sala allahu calaa nabiyina muxamedin wa alihi wasaxbi